Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada muuqaal cusub oo ku saabsan kala baro haweenka midda xun iyo midda wanaagsan. Muuqaalkan waxaa ii soo jeedin doona anigoo ah Maxamed Aadan. Daawasho wacan. Nin reer mi ah ayaa la weydiiyey haweenka midda ugu fiican, wuxuu ku jawaabay sidan: 1. Waa midda runta sheegta kolkay hadlayso. 2. Waa midda haddii ay qoslayso oo la cadeysa. 3. Waa midda haddii ay shay farsameynayso qurxisa. 4. Waa midda gurigeeda qurxisa joogta sawjkeedana aan caasiyin. 5. Waa midda tolkeed dhexdiisa ay ka tahay mid sharaf leh. 6. Waa midda arrinkeeda oo idin lama hadiyo. Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri: ma idin sheega haweenka jannada ehelka u ah? Wuxuu yiri: waa kuwa ragooda jecel u masayra ragooda. Waa midda kolka ay dhib geysato mise iyada la dhibo timaada gacanta sawjkeeda qabsata kadibna tiraahda wallaahi indho isu keeni maayo ilaa aad iga raali noqoto, taasi jannada dhexdeeda bay ahaatay, ayuu 3 jeer ku celiyay Nabigu sallallahu calayhi wasallam. Haddaba isla ninkii reer baadiyaha ayaa la weydiiyey waa tumad haweenka ta ugu xun. Wuxuu yiri: haweenka midda ugu sharta badan waa 1. Waa midda jirada isku ridda, carabka dheer, qaylada badan. 2. Waa midda oysa sabab la'aan, hadalkeeduna uu hanjabaad yahay. 3. Waa midda wanaagga daboosha, xumahana gudbisa. 4. Waa midda hadduu sawjkeedu yimaado baxda, hadduu baxana joogta. Fadlan hadduu ku qanciyay muuqaalkan, like, subscribe, share. Mahadsantiin.